Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fadlan ku soo dhawaaw channelkayga, subscribe saar, gambaleelkan furo. Waa mahadsantahay. aniga waan ogaa qofka youtube-kayga ee tiktok-kayga saan yeelay berina youtube-kayga inuu intaan inka badan ku samaynayo oo yaraan 700 tiktok-kayga ku dhawaa waa isaga baashaali jiray waxyaabo comedy aan kusoo gudbin jiray qof binaadam kuma dhibaatay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qaybteeda qaaliga waa idin salaamay dal iyo dibad meesha aad naga daawanaysaanba. Marka hore soo dhawaada. Marka labaad arrin igu soo korortay ayaan rabaa inaan idin la socodsiiyo. horta qofka muslim dhib waa laga fiican yahay. qofka bini'aadanka ah waxaa fiican in laga nabad galo carabkiisa, gacantiisa iyo weliba adinkiisa in laga nabad galo way fiican tahay. ana qof bini'aadan ah inaan dulmiyo, inaan ku xadgudbo, inaan dhibaateeyo weligay allahay niyadeeda maba soo gelinba, mana soo geli doonto. tan aan raba inaan ka hadlaa waxay tahay dad aniga maanta report igu dhuftay. waxay report ku dhufteen tiktok-kayga waxaa laga bixiyay hawada oo yaraan 700 tiktok-kayga ku dhawaa waa isaga baashaali jiray waxyaabo comedy aan kusoo gudbin jiray qof binaadam kuma dhibaatay jirin, qof binaadam dhuud kama samaynaynin, kaliya wixii maskaxdeeda kusoo dhaco oo aan isdhihi karo dadkan kaga qosolsiin kartaa aan kusoo gudbinaya. ugu dambeyn baata tiktok-kayga waxaa laga bixiyay hawada. tusaale wiil amaba gabar midkoo noqdayba qof baa tiktok-kayga hawada ka bixiyay amaba dad isku taga haddii ay yihiin allahu aclam, ilaahu kaliya wax naga og, annaga bini'aadan aan nahay. waxaa la yidhi qofka wax xado hal dembi uu leeyahay, laakiin qofka wax laga xado dhowr dembi ayuu leeyahay. sababtoo ah wuxuu ku tuhmayaa qofka u dhow, qof ka dheer, marba qof baa niyadiisa soo galaayo. anigaba intaba cid bini'aadan ee maanta niyaddeeda usoo gelaysa ma lahan. kolley waxaan ogahay aniga inaan ahay wiil Soomaaliyeed. markii laga soo tagay baabajey shakhsi ahaan waxaan ahay wiil Soomaaliyeed. waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho, waxaan ka xamaashaa magaalada Muqdisho. aniga maanta xamaali ma geli kari, qof faryaamo noqon karana ma ihi, qof wax soo bartayna ma ihi, khibradna uma lihi tiktok-gan iyo wax ku salaysan iyo waxa ay yihiin. kaliya aniga waan hadlaa, waxbaan iska dhigtaa, qofba xataa qoraalka aniga iigu qoro. alxamdulilah waxaan haystaa dad i caawiyo oo garbahayga iska taagan, laakiin maanta sheekada waa ay ka weyn tahay dadka garbahayga taagan. waxay u baahan tahay qof aqoontiisa ay aad u fiican tahay iyo maskaxdiisaba oo ilaahay aqli siiyey oo bahalkan fahansan oo wax ka qaban kara haddiiba ay dhacday in la soo celin karo. haddii gacan cadow oo galayna waaba kolley sida ay iiga rabeen ayna hawada ay ugu saareen. alxamdulilah kolley shalay baabajey aan 700 keensaday, maantana wejiga aan ku keensada waa igu yaalaa. boqolaal qofna waa haystaa oo garbahayga taagan oo Soomaali ah. haddiiba Soomaali aan ka dhashay aniga alxamdulilah, laakiin waxba kama faa'iideysid. aniga maanta waxaan ogahay haddii aniga aad dhibaatayso amaba report aad iga gudbiso amaba tiktok-kayga hawada aad ka saarto, kolley waxaad isku malaysaa qofka awoodda ugu badan dunida haasta inaad adiga tahay. laakiin maya, waxaa jiro qof anagoo dhan naga awood badan, beritan xaggiisa loo laabanayo. aakhire iyo adduun way kala fiican yihiin. aniga walaalka ayaan ahay maanta. aniga guriga kuuga imaanin, guri kaama qaadanin, waxba kaama dhicin, hanti kaama qaadanin, wax isii kuma dhaho, kuma toogsado, kuma dhibaateeyo, kuma caayo, kuma aflagaadeeyo. wax aan kaa haysto oo ilaahay untay ma jiraan maanta. haddii ay dhacdo xataa evan in aniga dhankayga ay wax kaa soo jiraan, qaab kale xataa way jiraan oo qofka bini'aadanka looga xaajoodo. ninka ragga xaniya ka taabasho wax uga xun ma lahan. aniga maanta korkayga meesha la saro dhiig kama imaanayo. macnaha waxa i haayo qofkii dhibaato soo kale ee ku dhacday bisaa dareemi karo, laakiin dhibaato ma lahan. aniga arrintan waxaan u sheegayaa Soomaali weyn. Soomaali weyn shalay adinkaa garabkayga taaganaa ilaa ay heerkan isoo gaarsiiyey. anigoo guriga iska joogo waxaad u aragteen inaan u noqday qof adinka idin madadaalin karo, waxaad ii aragteen inaan ahay qof idinka qosolsiin karo, waxaad ii doorateen inaan noqdo qof adinkoo dhan caan idin noqday oo lagu faani karo, qof walba waddada ku arka salaami karo. intaas waxaan aniga keensada ma ahan, waxaad adiga keentayna ma ahan. waa wax ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiina uu ku dhaliyey. aniga waan ogaa qofka youtube-kayga ee tiktok-kayga saan yeelay berina youtube-kayga inuu intaan inka badan ku samaynayo, laakiin mar walba qofka logooyada wado lillahi daa ka guuleysanayo. si kasto hadda kahor waxaa jirtay qiso dhacday, waxayna ku dhacday nin gurigiisa nin ka kiraystay. gurigiisa la kiraystay, guri qurux badan oo dhistay oo villa ah, ninaa soo degay. maalin walba markuu soo baxo derbiga oo cad oo wuxuu ku sameynaa tubaakoo cunaa, tubaakadii ku tufaa. ninka guriga iskale maxaa ugu tufta ma dhahay, wuu soo baxaa wasaqdii ka tirtiraa. si fiican u dhegeysa qisadan. waxaa macquula inay wax kaaga baxaan adigana berito dhib kugu soo socdaad kaga badbaadid.
ama wax aad sameynatid aad maanta kaga cishoontid aan macquul ah. Soomaalida waxay dhahdaa aqliga adiga kaa maqan wuxuu ku jiraa walaalka amaba qof adiga ku dhow. ninkii uu soo baxaa baaldi biyo soo qaatay, mara yar oo soo qaatay, wasaqdii oo darbiga ka tiray. guriga asaga iska leh. walaalo ani kelidaada maraba iga guuriya bax uu dhihi karay ma dhihin. wuxuu sameynayaa qofkan inuu kaga guuleysan karo xumaanta u wada wanaag. subax walba markuu soo baxo candhuufo ku tufaa oo tubaa kale wuu ka tiraa. subax walba u sameyn jiray subaxii dambe waxaa dhacday ninkii guriga iska lahaa soo horkacay, baaldi biyo iyo wuxuu soo qaatay maradii wax lagu tiraayay. ninkii yaa gurigiis ka soo baxa asagoo wuxuu sugayaa inuu darbiga ku tufo kadibna uu ka tiro. wuxuu yidhi walaalow guriga adigaa iska leh, aniga waan kiraystay oo keliya ka guuri waad dhigi kartaa, waa iga buri kartaa, waa idacweyn kartaa, wax walba igu samayn kartaa. sabab ee ku dhacday anigoo mar walba xumaanka ugu samaynayo ina adigana saan samaysid. wuxuu yidhi xumaanta badan waxaa loogu guulaysan karaa wanaagga. marka haddii ninkaas uu samayn lahay xumaan inuu ugu bedelo sheekada way socon lahayd. laakiin waxaad ogaanaysiin wanaagga inuu ka guulaysanayo mar walbaba xumaanta qofka bini'aadamka loo geysanayo. ana dad badan waa jiraan xumaanta ii geysanayo, anigii i neceb. naftan haddii ay iga bixin karaan way iga bixin lahaayeen, haddii ilmahayga iga dhex bixin karaan way iga dhex bixin lahaayeen. intaan hadda waaba yar tahay ka badan soo sameeya. babajey wuu taagan yahay, wuuna taagnaanayaa. inuu tiica lagama yaabo. ninka ragga waxaa la dhahaa ma tiici wuu tashtaa. kolley dad way jiraan awood u leh, ilaahay aqli iyo maskax uu siiyey, aqoontoodana ilaahay kaamil oo ka dhigay. way ii soo celin karaan tiktokeyga, way isaga xamaalinaa waan u baahanahay. ana sababta idinkugu sheegaya wax kale ma ahan. haddii uu jiro qof dhibkeyga ku farxaayo oo maanta qoslaayo oo dhahayo waxa anaga aan samayno waa ku guulaysanay, waxaa jiro hal qof allah ka dhigay oo aniga xanuunkeyga ka damqanayo. hal cunug yar allahba ka dhigay dareemi karo xaaladda maanta aan ku suganahay. ilaaha mahad iska leh, ilaaha mahad iska leh. aqligan iyo maskaxdan ilaahayga isiiyaa mahad iska leh. ilaahayga waxaa mahad iska leh awood ii siiyey markaan kusoo hor fadhiistay inaan kaa qosol siiyo. waxaa mahad iska leh ilaahayga subxaanahu wa tacaala codkayga kaaga dhigay markii aad dhegaysanayso dahab. waxaa mahad iska leh ilaahaygii inta aniga maanta lixaadka iga qaaday haddana gurigeyga aan i fadhiisanin, baakoor ii dhiibay haddana aan ku soconaayo. alxamdulilah. tiktok alaan samaysan doonaa haddii kana aan waayo. waa soo dhisaa haddana waan keenaa, wuu imaanaa meesha uu joogo meel kasii badan. waan idin tusi doonaa tiktokeyga meeshaa soo saaraa. waxa ku dhacayna adinka ila fiiriya. hawadaa laga saaray gabi ahaan. maraan gurigeyga soo galay qof video asla sameynay mursal wuxuu rabay inuu igu soo taagareeyo. wuxuu dhahay babajey taag dhan tiktokaaga ma lahan, hashtagna ma lihid. maxaa dhacay? asaga iyo mursal wada hadlay. aniga ciyaarta liverpool iyo waxaan fiirsanayay city, waa xamaasadeysnaay. waxaan rabay inay liverpool ay city koob ka qaado. aniga waxama boodboodaaye ay labadooda isla hadleen. waxay dhaheen babajey wuu faraxsan yahay, tiktokiisana hawadaa laga saaree seen ugu sheegnaa. way isla hadleen labadu. waxay dhaheen ciyaarta markay dhammaato oo dega kadib aan u sheegaa. mursal wuxuu dhahay inta hadda saan uu boodbooday aan u hoosgeliyo. babajey wuxuu dhahay tiktokaaga hal mar fiiri. wallahi markii aan fiiri tiktokeyga hawaduu ka maqnaa. waa naxay. qof wuxuu intaas ku dadaalayay, dadka ka madadaalinayay. war iska daa tiktokba maxay tahay? wax yar adiga aad leedahay, $1 ba allah ka dhigay. haddii adiga raali ka ahayn qof uu kaa qaato waa ka xanuunsanaysaa. aniga waa ka xanuunsaday. qofkii aniga ii xanuunjinayna waxaa dhici doonta maalin inuu xanuunsado. anaad waxuu isleeyahay ninkaan waxba ma yaqaano, wax looga baahan kara ma jirto isleeyahay. laakiin hal mid, saaxiibkaaba jiisa ahaadee maalin un waxaa dhici doonto inaad usoo baahatid. maalin un inaad wax yar, waxaa laga yaaba wax adiga aad u dhiman rabta xataa inuu asaga dhankiisa ay yaalaan, inaad usoo baahataa macquul ah. biniaadan ka maarma ma jirto. isla weynow, kibir badnow, waxaa doonta ahaw, waxaa doonta ka dhalo. qofkii ugu lacagta bad adduunyadaha ku dhalo, haddana ma ka maaratid inaad dhulka ku socoto. waa imaana dhulka ku soconay, waana lagugu duugaa, waana laga kormarinaa. biidna ilahi kariim ilaahay khayr ha ka dhigo. aniga kulley cidaan u calancalayna ma jirto, cidaan u dacwoonayna ma jirto. keliya waxaan idin sheegayaa in xaaladaas aniga aan ku suganahay maanta iyo dhibaatadaas kulley qofkii ka damqan doonana waxaan ka arki doonaa commentiga. haddii aan wax qaldan ku hadlayna igaraal noqdo magafo waa ilaahay. laakiin waxaan idin sheegayaa qofka maanta sameeyey riboodkan beritan adiga wuu kugu sameynayaa. qofka maanta aniga dhibaatadan ii geystay qof kaloo masaakiin ahna wuu u geysanayaa dhibaatadan. inta masaakiinta la dulminayana wax hagaagaya ma jirto. inta qofka gardaro lagu maagayana
xaqa si kastoo u soo daaho maalin uu soo daahiri doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baad u salaamantihiin meel walbo dunida aad ka joogtiin. farxad iigu noolaada.